soo dhawaada asxaabta waxaa soo dhamaaday ciyaartii Mareykanka iyo Wales laakiin waxaa jirta ciyaar kale oo ka horeysay oo u dhaxeysay Holland iyo Senegal. Afrika daanana meel laanahay wadanka Senegal caaw wuxuu ku soo galay ciyaartooy dhamaankooda dhashay Yurub oo yaqaan nimankan si u dheeleen annaka yaamna Holland guushada la tagaa inkastoo laba fursadood oo midna ku helay Dijon midna oo gagba ku baasay laakiin weerarka iyo hujumka waxa fiicnay Senegal kamni markii la maray oo la soo laabtay 45 dambe waxaas dhaanay Holland maadaama yani culays saaran ama laga dhalay markii dambe waxa go'aansan ciyaartan bareed way dhaanay on targetkii lagu helay gool uu noqdayba gagba madax Ahmed Waji iyo kii kale oo hortaagna oo Chelsea nimanka u dhilay gool inaga dhiibaan Afrika daanana awood walba leenahay waxa sinaga afar madow iyo afar cadaan la isku daray iskaga fiican tahay nimankan madowga Senegal aad u dheelin waxa isdeen guulantii la qaday hadii kala bareejo waa dhici weysay marka waxa leeyahay reer Liverpool si baa la hadlaa ninkii Van Dijk waa dheel caawa meeshaan hambalinaga leeyahay wax kale oo isoo hore ma lahan gagba ninka la aad u ciyaaray laakiin Holland ku fiicnaa wuxuu ahay Frank de Jong ninkaas oo Shafi Indey binj ku ay Shafi Indey ninkaas oo binj ku ay oo Barcelona ka fadhiisanay laakiin de Jong wuxuu qalmadaa inuu Barcelona ka dheelo koox walbana ka dheelo in uu qalmado way soo u dheelo waa la yaabay de Jong mid kale ninka 11 gool uu wato waa la bedela had laga bilaabo waxa la keeni doonaa ninka hadda goolka dambe dhaliyo soo galay ninkan uu sheeg buku mid la Norwich u dheeli jiray class meedan ninkaas hadda kadib dheeli doono Depay xataa uu iska fiicnay ninka qawaarka oo James Live sagaalka Tottenham u dheeli jiray hore ka dheelay waxa ka fiican Depay iyo gagba intuu ka dhigto macquul ay noqonay Holland mid laakiin Holland adduun waxa joognaa Holland laga dhicinayo Senegal oo Holland difaac galayso oo 5 difaac Holland ku soo galayso Edgar Davies iyo Van Gaal kullu wuxuu isku raaceen inay difaac galaan 5 gadaal ay galeen 5 gadaal waxa wax la qaadan kara maamba Holland Bruno dhulka ka dhigto soo socod jirta 5 gadaal dheeliso waa yaabkeeda laakiin 5 gadaal haday guul ku gaaraysaa dhisho dhima lahan marka Holland waxa way badisay groupkaas inay ka soo baxayso oo badan tahay kooxaha kula jirana waa taqaan Senegal xataa waa rajaleeda hadii ku aado wadanka Qatar lugtan soo socoto dhanka kale ciyaar hadda soo gabagowday oo Mareykan iyo dhaxayso Wales hal ku dhamaatay George Weah cunugiisi u dhaay Liberia meelaan u gooy magacana ma lahan horumarna ma leeyahay soo xagga aad waa madaxweyne dhan madaxweynayaasha xataa ilmahooda xagga u dirsanayeen team Weah cunugu dhalay ayaa goolkaas u dhalay team Weah laay wuxuu dheelaa Lille Francisco ka dheelaa Great Bell oo asna Mareykanka dheelaa goolka u dhalay labadan wadan kulligood Yurub laga dheelaa hal marka laga saaro ninkan laay Bell wuxuu ka dheelaa Mareykankana hal nin gudaha Mareykanka dheelaa waa ninka 4-5 labadana ka dheelay mid Fulham oo dheelaa Reem Lay kan kale la taagan ayaa Mareykanka dheelay Bolosage Dasta iyo Raheem iyo kuwa Leeds Fulham iyo Balay kulligood waxay ka dheelaan Yurub nimankan sidoo kale Wales kulligood waxay ka dheelaan Ingiriiska iyo Ramsey Francisco dheelo iyo Talyaaniga mid Chelsea leedo ama ku joogo kulligood saas ku dheelaan ciyaartii ugu horreysay bareej la gala waayay ciyaaraha kale waa la garaacay Qatar waa la soo garaacay waa wadanka u horeeyay oo gurigooda inta lagu qabto ciyaarta furtaan kala garaaco 92 sano la dheelo yahay 98 sano miya Qatar ugu horeysay wadanka ugu horeeyay la garaaca Qatar way Ingiriis waa badiyay 6 ku badiyaan Holland waa badisay 2-0 isha Wales bis iyo Mareykanka bareej ka dhacday ciyaaraha kalena waa la soo doontii laakiin meeshan waxa waaye Bolosage handoo baas Bell dhalay Bell wuxuu taagan yahay ana koob adduuni keenay haddana ana u niwada dusha niwada taagan Great Bell